sideedaba waxbarashadu waa qof labaad oo qofka haga weeyaan oo qofka markuu wax yaqaano uu ka duwan yahay qofka waxba aqoon wax loo baahan yahay inuu qof si wanaagsan u soo baxay waxbarashadu waa qof labaad oo qofka haga weeyaan marka waxoogaa ku dahaaran oo kolleeyba de maadaama la aqoonsaday waxaan filayaa in aan sidii hore wax badan aysan saaraanaynin oo dugsiyada private-ka ah gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ahi way aad u kala badan yihiin oo kuwa private-ka ah badan waxaana keenay waqti iyo dawladdu aan miisaaniyad inta lagu haynin laakiin imka waxaan leeyahay maadaama dawladdu ay ku darto istiraatiijiyadeeda inay maamusho iskuullada gaarka loo leeyahay ay meesha ka saarto iskuullada dawli wada noqdaan imika dee silbiska waa iskaga mid imtixaanaadka waa loo ilaaliyaa balse gacanta dawladda ardayda private-ka ah ee dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa fara badan markaas dee cadowga ama mucaaradadu way naga faa'iidaysan karaan marka horta xukuumadda gacantu si ay u wada ay istiraatiijiyadeeda ku darto dawladdu in dugsiyadu ay noqdaan wada dawli noqdaan oo miisaaniyadeedana loo helo iyo mushaaraadkooda waxbarashadana la kantaroolo oo aan dee midba wuxuu doono iska dhigin marka taa intaasaan kaga baxayaa tan kale ee manhajkan imika wasaaradda diinta iyo waqaafta ay soo saartay maxaan ku dhaha khilaafkuna ka taagan yahayna waxaan soo jeedin lahaa in guddi loo saaro intaanay nagu sii fidin oo wuxuu inta ay hor leeyihiin ayaa la qabtaa haddii ay dhowto waxaan inagu sii fidan mid khaldan dee garan mayno laakiin guddi culimaa oo aqoonyaha kalena ku dhex jiro oo dhammaan gobollada oo dhan ka kooban in loo diro 1 week bay kusoo dhammayn karaan khilaafkan 1 week ayaa lagu soo dhammayn karaa gobolladana ha looga yeedho culimmada oo guddi kooban oo maca daalika golayaashu ka mid yihiin taana intaasaan kusoo koobi lahaa aadna waa mahadsantahay